ciidamadii lafta gareen ayaa meelo badan oo magaalada Baydhabo ah la wareegay dagaal ayaa dhacay qasaare kala duwanna waa uu jiraa hanjabaado ayaa soo baxaya askar ayaa la tilmaamay in nolosha lagu watay qaarkoodna iyaga oo ka cararaya xiriyahoodii toogasho lagu dilay maxaa ka soo kordhay Baydhabo xaafado intee la eg ayay gacanta ku dhigeen ciidamada madaxweyne lafta gareen taabacsan ee duulaanka ku soo qaaday magaalada Baydhabo maxaa iska bedelay xaalka magaalada maalinamadii shalay weerarkii dhacay muxuu ahaa maxayse ka bedeleen ciidamadii isu soo bandhigay amaba yimid duleedka magaaladaasi oo si toos ah u sheegay inay taageersan yihiin lafta gareen saacadaha soo aadan ay la wareegi doonaan magaalada Baydhabo maxaa keenay weerarkan haddii maalinimadii shalay weerar la qaaday oo ciidamadan fariisimahoodii laga saaray muxuu ahaa qorshaha xalay ciidamada taabacsan madaxweyne lafta gareen ay ka lahaayeen gudaha magaalada Baydhabo wararkaas iyo idil ayaan halkan idinkugu soo koobi doonaa saaxiibayaal tirada askarta waa la watay inta ay la eg tahay haddii ay jiraan saldhigyo la qabsaday oo magaalada Baydhabo ka tirsan iyo xogo kale oo ku aadan xaaladda guud ee magaaladaas ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii markaa kugu horeysay oo aad soo booqato channelkeena waxaan ka codsanayaa inaad subscribe dhahato qaybta hoose ee faaladan aragtiina nagula wadaagtaan sidoo kale saaxiibadana la sii wadaagtaan muuqaalkan si uu meel dheer u gaaro sidoo kale u heshaan wararka degdega ah ee xaqiiqda ku salaysan haddaba waxaan idin soo koobayaa dagaaladii shalay dhacay ilaa iyo xalay waxyaabihii laga diiwaangeliyay Baydhabo xaaladii saaka si ay tahay waa sida ay tahay iyo guud ahaanba waxyaabaha kale ee ka soo kordhay sida aad badankii ka warqabtaan xaaladda magaalada ayaa qasan aadamadoodi oo hogaamiyaha maamulkaasi ahna magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayuu ku sugan yahay mid jirto ilaa iyo hadda war uu ka soo saaray dagaalka Baydhabo oo ku aadan haddii ay jiraan qasaare iyo haddii ay jiraan ciidamadii halkaasi ee difaaca uga jiray ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale kuwii kaleba waliba daraawiishtii hore ee koonfur galbeed si gaar ah ciidamada birmadka loo yaqaano oo halkaas ku wada sugan si ay u ilaaliyaan ammaanka guud ee magaalada Baydhabo gudahana aan la soo gelin habeenimada xalay waxaa dhacay dagaal qaraar oo aad u xooganaa oo maray ciidamada daraawiishta ee madaxweyne lafta gareen taageersan iyo ciidamada birmadka koonfur galbeed oo garab ka helaya kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan booliiska sida gaarka u tababaran ee harcad loo yaqaano ciidamadan waxaa la tilmaamay iyaga oo isgarabsanaya inay difaacyo uga jireen xaafado dhowr ah oo magaalada ka tirsan kuwaasi oo siyaabooyin kala duwan la tilmaamay inay difaacyadaas ugu jireen laakiin xogta iyo wararka aan helayno waxa ay sheegaysaa in saacadihii la soo dhaafay si rasmi ah ciidamada taageersan madaxweyne lafta gareen ay la wareegeen xaafado badan oo magaaladaas ku yaala xogtaanina waxa ay sheegaysaa iyo saraakiil aan u xiriirnay xaafadda lagu magacaabo Bayxaaw in lala wareegay oo ciidamada madaxweyne lafta gareen ay la wareegeen sidoo kale xaafadda lagu magacaabo Xanaana labo wadada Sodonka halka lagu magacaabo Cali Axmar ilaa iyo meelo badan oo ka tirsan magaalada Baydhabo dhammaan meelahaas waxay ahaayeen degmooyinka ama baraha kontarool ee ay gacanta ku dhigeen ciidamadan taabacsan madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed waxaa la diiday in dagaalka markii ay ku soo galeen magaalada ay ku soo bilaabeen hubka culus noocyadiisa kala duwan gaar ahaan qoryaha dhishikaha kuwa waaweyn ee biitanka loo yaqaano iyo RPG-ga oo dhammaantood la tilmaamay inay ahaayeen hubka ugu culus ee magaalada ay ku weerareen ciidamadan sida gaarka u taabacsan madaxweyne Cabdicasiis Xasan لفتقرن أنتي ورك عن هلينو وحين تاس كدريسا سالديجا هالكا أنا رادي هالكا كله على أحمر إن إذا ما بس توسع أي لوريجين أو عنت أي كلين إذا ما هو بيسن أو كوا دراويش جارهان كوا بالمكة دولة فضل الصومالية وحلوري إنه رش أي قوتين oo magaalada banaankeeda ay markaasi u saareen laakiin waxa la warinayaa in ilaa iyo intaas oo dhan ay yihiin kuwa aan xaqiiq rasmi ah loo hayn saacadaha soo aadanse waxa la filayaa inay soo bandhigaan ciidamadan sida gaarka u taabacsan madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ee duleedka magaalada Baydhabo ku sugan weerarkii ay ku soo qaadeen habeenimada xalay ilaa saacadan aan la hadlayna la tilmaamay inay dhaqaaqyo socdaan oo ay ku doonayaan in mar kale ay Baydhabo si toos ah gacanta ugu dhigaan ciidamadan dhowrkan xaafadood ee hadda aan soo sheegay oo ay ku jirto Bayxaaw Xanaana labo halka lagu magacaabo Cali Axmar ilaa iyo wadada Sodonka guud ahaantoodba dib ay isaga bixin mar kale iyaga oo halkaasi shacabkii ku sugnaa ku wargeliyay in si toos ah ay uga fogaadaan meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamadan birmadka ah ee koonfur galbeed Soomaaliya waxaase la wariyay in aanan la ogeyn
xilliga kale ee rasmiga ah ee ay ku ballameen in markaasi ay soo qaadi doonaan dagaalkan, laakiin waxaa lagu warinayaa inay socdaan shirar gaargaar ah oo la doonayo in mar kale Baydhabo dib ay ugu qabsadaan ciidamadan, iyada oo la tixgelinayo guud ahaan waxyaabaha shacabku ay halkaasi ku sugan ku qaadeen. sidoo kale waxaa la wariyay in ciidamada dawladdu ay si awood ah Baydhabo uga saareen ciidamadan madaxweyne Laftagareen taageersan, inkastoo xogtaas aanan la heli karin. haddana dadka deegaanka iyo ilo ka agdhow kuwa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa madaxweyne Laftagareen taageersanba waxa ay si toos ah u sheegeen in Baydhabo iskood ay isaga baxeen, iyaga oo waliba la tilmaamay inay ka baqeen in shacabka deegaanka ay la kulmaan dhibaato kale oo hor leh oo diyaarado dagaal iyo waxyaabo kale ama duqeymo inay dhacaan oo waliba ay si toos ah dhibaato ugu gaarto dadka deegaanka. xaaladda guud ee magaalada ayaa la tilmaamay hadda inay tahay mid degan, xilli kastase ay isbedeli karto. ciidamadii Laftagareen ayaa dib uga baxay, sidoo kalena waxaa la wariyay in maalmaha soo aadan iyagana isla sidaas oo kale ay dhici karaan weeraro toos ah oo markaasi ay fuliyaan ciidamadan oo kol horeba weerar ka soo qaaday gobolka magaalada Baydhabo ee xarunta kumaalgaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. sidoo kale waxaa jira fariimo kala duwan oo ka yimid inta dagaalka uu socday ciidamada taageersan madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. waxaa ka mid ah wasiirkiisii amniga gudaha ee gobolkaasi Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa si toos ah shacabka ugu wargeliyay inay ka fogaadaan meelaha ay ku sugan yihiin ciidanka dawladda. war qoraal ah oo uu soo saaray ayuuna ku yiri shacabkeena sharafta leh ha ka fogaadaan goobaha ay degan yihiin ciidanka si aanay dhibaato idin soo gaarin. waxaan u dhafraynaa dhaxanta iyo cadow amba qabowga u joognaa inaan idinka dulqaadno kuwa duulaanka ku soo qaaday Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo shacabkeedaba. sidaas ayuu ku soo gudbay qoraalkiisa, waxaana uu ahaa hadal in badan oo kamid ah dadka deegaanka ay ku tilmaameen mid hajabaad ah oo guud ahaanba looga digayo shacabku inay qayb ka noqdaan meelaha ay degan yihiin. ciidamadan ay ciidamada Laftagareen u yaqaanaan Salbalaar iyo sidoo kale Afbalaar intaba. waxaana inta badan deegaanka hadda uu yahay mid degan. saacadaha soo aaday waxaa la filayaa in si toos ah loo soo bandhigo ciidamadan la tilmaamay in howlgalkii xalay ay ku qabteen kuwa madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. faahfaahinta Baydhabo ka imaanayso waxa ay sheegaysaa in dhaqdhaqaaqyadan ciidan sidoo kale ay weheliyaan update kale amaba aan idhaahdee warar kale oo la xiriira in abaabul kale la wado, kaasi oo ah in ciidamada Aadan Madoobe ay weerar ku qaadaan maalinimada shalay halkii ay tageen ama goobihii ay tageen ee ay sheegeen in wiil dhalinyaro ahaa oo la disnaa amba xirnaa dareeska ciidanka gurmadka ama daraawiishtii hore Koonfur Galbeed Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigan oo ku soo qabteen oo ugu dambeyn ay ku sheegeen inay ku daba jiraan rag kale oo magaalada Baydhabo duleedkeeda ku sugan. laakiin arrimahaas oo idan marka laga soo tago xaaladda ayaa saaka degan. ciidamadii ugu badnaana waxay ku sii qulqulayaan dhinaca madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ciidamada taabacsan oo guud ahaantoodba la filay iyagana inay duleedka magaaladaasi gaaraan. sidoo kale deegaanada kale ee Koonfur Galbeed waxaa ka imaanaya warar kale oo ku aadan in ciidan kale oo gurmad ah oo daraawiishta u socda lagu arkay saacadihii la soo dhaafay deegaanada qaarkood. gudaha magaaladaas rag caan ah ayaa lagu warinayaa sidoo kale in hubkoodii iyo ciidankoodii ay kala baxayaan oo duleedka magaalada Baydhabo ay aadayaan. wixii ka soo kordhay saaxiibayaal guud ahaanna barnaamijyadeena wararkeena dambe ayaan idinkugu soo gudbi doonaa. haddii aad ilaa dhamaad soo gaarteen subscribe oo channelkeennan qaybta hoose ee faaladan aragtidina nagula wadaaga, saaxiibadina la sii wadaaga muuqaalkan si uu meel dheer u gaaro.